قفك أو نفط طاهرة طهارة نشيغنا ونفط خيرك لغو تربية اللغة العصرية لا استعمالها وتربية الأنفس وقفك أو مسلم نمادي سيسكت ضيا إنه نفتي سكون رباية إنه كوكرية رباية ضمها عرورته وحلا ربايا قف أو مسلم يقول بهي إنه نفتي ستربية نفط وحرق لما ستان الله ما تاكله waxay doonaysaa shahawaat way iska tira badayeen shaytaanna waa kulla ma yahay idan waxay doonaysaa cid hogaanka u qabata amal kasto oo xun oo aad rabtay inaad ka foqdaa wuxuu kaaga baahan yahay waqti wuxuu kaaga baahan yahay azimo iyo go'aan adag wuxuu kaaga baahan yahay asxaab wanaagsan wuxuu kaaga baahan yahay diin fiican aad qaadato wanaag kasto aad rabtay inaad ku dhaqantaa naftu waxay u baahan tahay in la layliyo awrka goorma la rartaa qaali yaro buubo kaynta iska baraya dee lama rarto awrka inta la soo qabto ayaa la layliyaa oo muddaan haama la saarin ee hoggaan qura la baraa oo kaynta la wadaa la ereriyaa oo kolba geed lagu xidhaa oo sanqadh badan la maqashiiya oo ood iyo wax lagu raraa aakhirka haama lagu raraa beri dambe hayin noqdaa iyo gurgurshaa yacni awrku maalinta koowaadba ma soo baxo hayin ama gurgurshaa ama wax la iska rarta ma noqdo ee muddaa la layliyaa nafta bini aadamkii waxay u baahan tahay in la layliyo maalinta hore salaatu leelka way kaa diidaysaa dadka ha xaman inta ugu taagelimaysa adigoo dhinaca xanta kaga jiro baad sarkaysaa heblaayo markay sheekada ku bilowdo aadna ka jawaabay baad arkaysaa waxaasoo dhan naftu way iska wadaysaa laakiin waxay u baahan tahay in hogaaninta lagu xidho la wado oo la layliyo oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay u soo urto oo xumuhu qofku uu la xumaado oo iimaanku uu dhadhan la yeesho sidaa awgeed buu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayay إيمانك معان كيسا عدة هشاه وحكم إذا بولي 3 من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان بالنبي بولي صلوات الله وسلامه عليه صدح منك دردمية صدح منك صمائية إيمانك دردن كيسي معانا ودردمي إيمانك دردن معان بولي إلهي يقول حدنا هذا دردن معان بيلاد ولذلك واحد علماء الصلف وحلق الشيقة wuxuu dhigay 20 sanadoodna naftaan qasbayay inay salaatul leelka u kacdo 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahay dhadhankeedii baan gaaray intii hore waan qasbayay buu leeyahay oo hoggaan baan ku hayay inaan layliyo laakiin markii dambe waxaan gaaray buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed wuxuu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh 3 man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan saddex ninkii sameeya إيمانك معانك يسوود النبي من عبد الله عز وجل وحده منك إلهي سبحانه وتعالى كلي عابده وأعطى زكاة ماله طيب بها نفسه في كل عام وبحية زكاة حوله سيسقوا نفتي أي رال لكطهي والربين الزكاة استكوي ليري زكاة في عناب بحية وزكى نفسه بنبوه ونفتي سنة طاهر يالا صدح ذلك اسكو درصده الإيمان بالله وإلهي كالقي إن عابده إن مالك بحسودك إلهي كيرسي سيسي هي نفط إن طاهر ياشا صدح ذلك اسكو درابو نبي لي كاسي وحد دمي محي وحد دمي نبي لي طعم الإيمان إيمانك معانكيس نبا وحكوري وما تزكية نفس وإيمانك معانكيس ومحي بالقول إلهي رسولك سيو النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أن تعلم أن الله عز وجل أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وإنه قفك وقال محي إنه إلهي معي سيميل كستوجه قضية المراقبة بك شرح النبي تزكية الأنفس مركا كان وحكم معنيين يتهي محي إنه قفك إلهي إلاليه وحكستوه قبريا إنه يراهده إلهي تلو محوكا ورريا حلال بام حرام بام من دم باكو سغن ما أشر باكو سغن ما خير بات كهليسا مس شر بات كهليسا قفو انتان wax qabanin inuu wax kan arko inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu taalacana yar wax laga yaabo qofka bini'aadamku dunuubta markuu sameeyo inuu saddex la dhuumo meel aan dadku ka arkaynin xumaha ku sameeyo laakiin qofka ilaahi si dhab qalbigiisu iimaanku uu galay wuxuu rumaysay inaan meel lagu dhuntaa jirin adduunku baynu makshuuf iyo qaawan yahay way ilaahi ba ku arkaya mar hadii ilaahi ku arkayana kabtaa ma yeelana yaadka wax ka qarinba mar hadii ilaahay uu ku arkayo subhanahu wa ta'ala meel aad ku dhuumato iyo meel ugu qarsoomaatoona ma jirto sidaa ogaad waxaan leenahay ikhwati fi al-aqiida
mas'aladaa in nafta la tarbiyeeyaa waa masalo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay. waxay leenahay waa masalo u baahan naftaada intaad tarbiyaysay waxay ku xidhan tahay intaad alla ka cabsigaagu batay. sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa. waxba aniga haysu kay ammaanina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. anaa og ka alla ka cabsada baa la leeyahy subxaana wa tacaala. cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay anaa og baa alla leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ahlu taqwuna waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay isdaahir yeelaan, isagoo raba qofku bukhliga iyo shaxnimada, dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo. yacni nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay. abuur ahaan bay nafta bini aadamkii u jeceshay inay iyadu wax yeelato, cidna inaanay wax ka siinin. alanaaniya, keligaa inaad wax yeelato wuxoo dhammin. laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyayso, waa iyadaa lagugu itixaamo. walidaalika inaad barto, ilaahay baa qur-aanka muxuu ku leeyahy wauxdirat ilanfusu shux. nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey baa la yidhi gebigeedba. laakiin maxaa kale ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun. ninka awoode ee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu, waayo naftaadu yay ku bakhaylaysaa, aday kugu bakhaylaysaa. waxanaad ururinaysa waad ka dhiban un adigu ma lihid. inan iyo inankii u hadhatoona danka ma lihid. adigu maxaad leedahay? waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horreeya. waxa aad daarta aakhira ku dhisataad leedahay. daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kuma lihid. waxaad ku leedahay maxay? daartaada aakhira waxaad ku dhisatay. cidda aad ku bakhaylaysaa waa isla adigii. waman yabkhal fainamaa yabkhal calaa nafsi. ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylayaa waa maxay? waa naftaadii. idan waxaa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo. ilaahay markaasuu leeyahy wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si ay isu daahir yeelaan. waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhan yihin. qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay. waana kaasi uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay uu ka baryay. walidalik baa culammadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada, wixii ma'muuraad ee la farayna la yimaado oo sameeya.